aabbahay wuu iga tegay anigoo weli uurka ku jira. Hooyaday Erika ayaa keligeed igu soo barbaartay. Waxaan ahaa ilmo 10 jir ah xilligii ciidda Kirismaska. Habeenkaas hooyo waxay dhamaysay diyaarinta cashada. Waxay ahayd mid fudud, baradho la tumay, digir qalalan iyo keeg macaan oo gaar ah. Waxay ka shaqayn jirtay 2 shaqo, sidaas darteed habeenka ciiddu wuxuu ka mid ahaa habeenada yar ee ay si dhab ah u nasto oo ay qosol yar hesho. Iftiinka geedka Kirismaska ayaa daaqadaha ka ifinayay midabo casaan iyo cagaar ah, iyagoo u ekaa xidigo yaryar. Waxaan xusuustaa sida ay u faraxday markii ay ii dhiibtay nacnac yar oo macaan, iyadoo leh ciid wanaagsan wiilkayga yar. Wax walba waxay u ekaayeen kuwa quman. Ilaa aan maqlay garaacis albaabka ka timid. Waxay ahayd fiidkii dambe. Hooyo way istaagtay. Tani waa yaa, ayay tiri. Codkeeduna wuu isbedelay. Garaacidii ayaa mar kale timid, markan si ka xoog badan. Halkan joog, noox, ayay igu tiri, iyadoo u sii socota albaabka. Cod bannaanka ka yimid ayaa yidhi, hohoho, ciid wanaagsan hooyo. Waxaan u imid inaan hadiyad keeno. Hooyaday indhaheedu way isku dhaceen. Waxba ma aan dalban, ayay si tartiib ah u tiri. Waxay ka eegtay daaqada yar ee albaabka, waxaana arkay midabka wejigeeda oo isbedelay. Indhaheedu way kala furmeen cabsi darteed. Ka hor intaanan wax weydiin, ninkii bannaanka joogay wuxuu bilaabay inuu si xoog ah albaabka u garaaco, isagoo isku dayaya inuu soo galo. Waxaan bilaabay inaan qayliyo anigoo aan fahmin waxa dhacaya. Hooyo waxay igu amartay inaan qarsoomo, laakiin cabsi ayaan istaagay. Kadib garaacid xooggan, albaabkii wuu jabay. Hooyo ayaa igu duubtay laabteeda, anagoo dib ugu cararnay geeska qolka. Waxaan aragnay nin xiran dhar Kirismas ah, dhiigna ka muuqdo, oo gurigayaga soo galay. Indhihiisu waxay ahaayeen kuwa madhan, sidii inuusan si dhab ah meesha u joogin. Ma sidan baad u soo dhawaysaan Kirismaska, ayuu ku qayliyey. Gacantiisa wuxuu ku hayay mindi dheer oo jikada ah, iftiinka Kirismaskana ka dhalaalaya. Hooyo waxay miiska ku tuurtay, saxanadii way jabeen. Carar, noox. Waan istaagay. Ninkii wuu soo dhaqaaqay, miiskiina dhinac ayuu u tuuray sidii wax fudud. Hooyo waxay gacanta iga qabatay, waxayna igu jiiday jikada. Waxaan ku cararnay albaabka kaydka cuntada. Gudaha gal, degdeg. Waxaan isku dhex tuurnay kaydkii, annagoo ku dhex jirna sanduuqyada badarka iyo dhalooyinka. Hooyo waxay albaabka xirtay, gacanteedana afkayga saartay. Ha qaylin. Anigoo god yar ka eegaya, waxaan arkay ninkii oo jikada dhex socda. Waan ogahay inaad halkan ku qarisan tihiin. Kirismasku wax walba wuu arkaa. Hooyo way gariiraysay, laakiin indhaheedu way adkaa. Waxay eegtay daaqada yar ee dhabarka, mid keliya ilmo ka bixi karo. Markii tallaabooyinka ninka ay ku soo dhawaadeen albaabka kaydka, hooyo ayaa i qaaday, daaqada ii geysay, iyadoo igu leh, ma i maqlaysaa wiilkaygiiyo? Waa inaad daaqadan ka boodaa oo aad carartaa. Ha istaagin, ha dib u eegin. Fadlan u sheeg deriska inay booliiska wacaan. Maya hooyo, ayaan ku ooyey. Ila soo raac. Indhaheedu ilmo ayay buuxiyeen. Ma jiro waqti. Samee waxa aan ku idhi. Waxaan ka booday daaqada. Qabowgii habeenka ayaa wejigayga jaray. Markii aan dib u eegay, waxaan arkay hooyo. Ninkii ayaa gadaal ka qabtay. Mindidii way dhalaalaysay markii uu dib u jiiday. Xagee baad u socotaan? Kirismastu weli wuu bilaaban yahay, ayuu ku qayliyey. Carar, noox, ayay hooyo ku qaylisay. Ninkii wuxuu isku dayay inuu i qabto, balse hooyo ma uusan ogolaan. Waxay wejigiisa ku dhacday, dhiigna ka keentay, timo badanna ka rujisay. Cadho ayuu ku qayliyey, anigana wuu iga sii daayey. Waxaan ku dhacay barafka, anigoo kablaan ah, kuna cararay dhanka beerta. Gadaashayda waxaan maqlayay qaylo, alwaax jaban, iyo codkii hooyaday. Guriga deriska wuxuu ahaa 2 guri hoos. Waxaan ku garaacay albaabka. Markii marharis furay, waan gariirayay oo hadli kari waayey. Waa nin. Hooyaday way dhaawacantay. Fadlan booliiska wac. Isla markiiba wuu wacay. Daqiiqada kadib, sireenno ayaa yimid, balse waxay iila ekaayeen saacado. Markii booliisku gurigayaga galeen, albaabkii hore wuu burburay. Guriguna wuu qasan yahay. Geedkii Kirismaska wuxuu yaalay dhinac, qurxintii dhulka ayay ku daadsanayd. Ninkii wuxuu yaalay dabaqa, dhiig madaxa ka daadanayo. Hooyo waxay ku dhufatay shumac bir culus ah. Saraakiishu waxay yidhaahdeen hooyo waxay u dagaalantay si geesinimo leh, laakiin way ku guuldaraysatay. Waxay heleen iyadoo dhinac jiifta, mindiduna weli jirkeeda ku jirto. Waxay dhiig baxday ka hor intaan gargaarku imaan. Jeebkeeda booliisku waxay ka heleen sawir aniga ah. Nafteedii ugu dambaysay aniga ayay ka fikiraysay. Waxaa ka soo wareegay 20 sano habeenkaas. Booliisku waxay ii sheegeen in ninkii ka cararay isbitaal dhimir ah, dharka Kirismaskana uu ka xaday xarun deeq ah. Saacado ka hor weerarka wuu badbaaday, balse weli meel ammaan ah ayuu ku xiran yahay. Mararka qaar waxaan isweydiiyaa haddii uu xusuusto wixii uu sameeyey, laakiin inta badan waxaan isweydiiyaa in hooyaday ogaatay sida ay u ahayd geesi dhab ah. Waxay dooratay inay dhimato si aan u noolaado. Muusiga Kirismaska mar dambe ma dhegaysan karo. Habeen kasta ka hor inta aan seexan, waxaan weydiiyaa Ilaahay sababta uu qaato kuwa naxariista leh. Qofkii iga tegay anigoo aan dhalan, waxba kuma dhicin, laakiin qofkii nafteeda u huray wiilkeeda, iyada ayaa la qaaday. Sidee bay noloshu u noqon kartaa mid sidaas u cadaalad darro ah? Markii la furay, waxaa ku jiray sawir aniga ah, anigoo dhar buluug ah xiran, anigoo weli ilmo yar ah. Dhabarka sawirka waxaa ku qornaa Dilan, sanadkii dhalashadiisa. Waalidiintay waxay sheegeen inaan sawirkaas weligood arag. Boolisku weligood ma ay helin George. Mararka qaar waxaan isku qanciyaa inuu ahaa nin waalan, laakiin qoto dheer waan ogahay, wuxuu i aqaanay. Waxaan ku idhi waan daalanahay, balse runta ayaa ahayd inaan ka baqayay. Habeenka intiisa badan waxaan ku qaatay qolkayga, anigoo ciyaaro ku mashquulsan, iftiinka damiyey, codkana hoos u dhigay. Ugu dambayn waan seexday, laakiin habeenkii dambe ayaan toosay. Waxaan maqlay tallaabooyin aad u khafiif ah oo qolka u soo socda. Wadnahaygu wuu istaagay. Gacan ayaa si tartiib ah u rogtay qabsashada albaabka. Albaabkiina si aamusnaan ah ayuu u furmay. Iftiinka dariiqa ayaa muujiyey abti George. Wuxuu xiran yahay dharkii ciida, mid duug ah oo gabowday. Timihiisu way fidsanayeen, gacantiisana wuxuu ku hayay koofiyad cas. Maxaad samaynaysaa? Ayaan idhi, codkaygu gariirayo. Wuu qoslay, isagoo ii soo dhowaanaya. Ciidu waxay keentaa hadiyadda uu wiilku ugu jecel yahay. Fadlan bax, ayaan idhi. Wuu iska indha tiray. Wuxuu ii soo bandhigay sanduuq yar oo hadiyad ah. Ciid wanaagsan, Dilan. Muddo dheer ayaan sugayay inaan ku siiyo tan.
waan dhaqaaqi waayey wadnahaygu wuxuu garaacayay si xanuun leh wuxuu qaaday tallaabo kale kaalay ayuu yidhi keliya habsiin kale oo ciid ah markaas ayaan qayliyey hooyo iyo aabe way soo ordeen iftiinka dariiqana wuu shidmay maxaad samaynaysaa ayuu aabbahay ku qayliyey george wuu gariiray balse wuu istaagay waa hagaag ayuu yidhi si hoose waan isnaqaan aabbahay wuu ku riixay ka bax gurigayga hooyo waxay ijiiday sariirta korkeed anigoo neefsan kari waayey george markii uu baxayay koofiyadiisii ayaa dhulka ku dhacday wuxuu ii eegay indhomadhan ma fahmaysid ayuu yidhi waan ku aqaanay tan iyo maalintii aad dhalatay ka bax ayuu aabbahay ku celiyey haddii kale booliiska ayaan wacayaa george wuu qoslay wuxuuna ka baxay guriga booliiska way yimaadeen balse george lama helin baabuurkiisii bannaanka ayuu yaalay mishiinkiisuna wuu qabowaa balse isaga raadkiisii ma jirin sanduuqii hadiyadda ahaa weli wuxuu saarnaa miiska markii la furay ciidu had iyo jeer waxay ahayd mid deggan gurigayaga aniga hooyo iyo aabe oo keliya ma aanan lahayn qoys ballaaran sidaas darteed ciideennu waxay ahayd mid aamusan oo nabad ah waxaan daawan jirnay filimaan ciyaari jirnay ciyaaro loox ah waxaan cuni jirnay buskud sonkor ah oo hooyaday dubtay halka aabbahayna uu had iyo jeer u muuqday mid wax walba uga mahad celinaya ilaahay laakiin sanadkaas wax walba way ka duwanaayeen aabbahay wuxuu sheegay in qof cusub nala soo cuni doono cashada ciida wuxuu yidhi waa walaalka hooyadiis qof aanu muddo dheer arag magaciisu wuxuu ahaa george markii abti george yimid wax isaga ku saabsan ayaa si degdeg ah ii dareensiiyey raaxo la'aan wuxuu ahaa nin dheer jidh ahaan culus timo caddaan ah oo yaraaday indho aan deganayn oo hadba dhinac u kala boodaya mar walba wuu eegayey laakiin weligii si dhab ah uma fiirin jirin wuxuu yimid isagoo xiran jaakad dheer oo duug ah wuxuuna watay boorso safar oo keliya dilaan ayuu yidhi wax badan ayaan kaa maqlay ka hor intaanan jawaabin wuu i habsiiyey gacmihiisu aad bay u dheeraayeen neeftiisuna qoorta ayay igu kululaatay si degdeg ah ayaan isaga fogeeyey anigoo ilka qaniinaya hooyo waxay si walaac leh u eegtay aabbahay balse aabbahay wuxuu iska dhigay in uusan waxba dareemin cashadii waxay ahayd mid culus george wuu hadli jiray mar walba wuxuuna dhowr daqiiqo gudahood i weydiinayay su'aalo aan ku raaxo dareemin dadayda haddii aan gabadh saaxiib la ahay iyo waxyaabo kale oo aan habboonayn habka uu ii eegayay ayaa iga keenay qabow dhabarka iga soo degaya indhihiisu mar walba way dhaqaaqayeen sida cayayaan baala leh taasi waxay wejigiisa ka dhigtay mid cabsi leh mar qura ayuu gacanta ii fidiyey si uu timahayga u taabto waxaad leedahay wejiyo adag ayuu yidhi waxaad i xusuusisaa qof waxaan kursiga gadaal ugu dhacay iga raali noqo ayaan idhi hooyo ayaa i daba timid iyadoo i weydiinaysa haddii aan fiicanahay marna ma iloobi doono habeenkii ciida ee aan jiray ilmo 12 jir ah waxaa la filayay inuu noqdo habeen quman kooko kulul filimaan dhar hurdo oo isku mid ah iyo in aan habeenkii oo dhan kor u joogno annagoo qosol la wadaagaya saaxiibada aabbahay si gaar ah ayuu isku dhiibay sanadkaas wuxuu sudhay iftiimo dhalaalaya barandada wuxuu ku daray sharabaado dabqaadka korkiisa xataa wuxuu kiraystay mashiin baraf been abuur ah oo beerta dambe yaala saaxiibadeennii ugu dhowaa emily iyo harber ayaa yimid fiidkii hore waxaan wada dubnay buskud jikada ayaan ku wasakhaynay waxaana ku dhisnay qalcad barkimooyin ah dhexda guriga wax walba waxay u ekaayeen kuwa diiran ammaan ah oo farxad leh fiidkii dambe annagoo ku dhex jirna qalcadda oo daawanayna home alonetwo ayay emily si lama filaan ah u aamustay qof baa daaqadda jooga ayay si hoos ah u tiri aniga iyo harber ayaan daaqadda u jeedsanay markii hore waxba ma aanan arag markaas ayaan arkay nin xiran dharka santa claus oo taagan barafka bannaanka kuna dhow geedaha derbiga gadaashiisa ma dhaqaaqin keliya wuu taagnaa annagana wuuna daawanayay iftiinka casaanka ah ee nalalka guriga ayaa ku dhacay wejigiisa taasoo ka dhigtay mid aad u cabsi badan harber ayay qosol cabsi leh ka soo yeertay waxaa laga yaabaa in aabbaha isku dayayo inuu nagu cabsiyo waxaan rabay inaan aamino taas runtii waan doonayay laakiin aabbahay wuxuu ku jiray dabaqa kore isagoo wax hagaajinaya mana aanan dareemin inay tani tahay kaftan waxaan ku orodnay jaranjarada annagoo aabbahay ugu qaylinayna aabe qof baa bannaanka jooga isla markiiba ayuu soo degay wuxuuna qoslay sidii annagoo buunbuuninay malaha waa deris ama qof maraya ayuu yidhi laakiin markii uu isagu daaqadda eegay ninkii wuu baabay bal arka ayuu yidhi hoosku waa khiyaamo waxaan ku soo laabannay qalcaddii balse midkeenna ma awoodin inuu diiradda saaro filimka dhawaaq kasta oo yar ayaa nagu filnaa inaan boodno aniguna weli ma aanan ka saari karin sawirka ninka santaada ah ee barafka taagan dhowr saacadood kadib waxaan maqlay dhawaaq kale waxay ahayd dirbaaxo jilicsan kadibna mid kale waxay ka imanaysay kor saqafka harber ayaa qaylisay emilyna way ooyday aniguna waan aamusay anigoo saqafka eegaya aabbahay wuxuu ka soo baxay qolka jiifka maxaa jira ayuu ku qayliyey waxaan ku nidhi in qof saqafka joogo wuxuu qaatay jaakadiisa iyo toosh wuxuuna yidhi wax ku saabsan xayawaan yar yar kadibna bannaanka ayuu u baxay waxaan ka daawanaynay daaqadda hore isagoo guriga ku wareegaya iftiinka tooshkuna barafka jaraya markaas wax walba way aamusay daqiiqad yar kadib waxaan maqalnay cod kale wuxuu ka imaanayay sakaadka gudaha wadnahaygu uu istaagay ma maqashaan taas ayaan idhi ka hor intaanay wax jawaab ah bixin waxaa ka yimid saqafka cod jiidasho ah sida qof ama wax ku socda waxaan ugu qaylinay aabbahay wuxuu gudaha ku soo laabtay kabihiisuna baraf ayay ka qoyeen tooshkiisuna gacanta ayuu ku gariirayay waxaan wada istaagnay dariiqa annagoo daawanayna isagoo jaranjarada sakaadka soo jiidaya qabow ayaa naga soo dhacay marna ma iloobi doono wejigii aabbahay markii uu tooshka kor u iftiimiyey yaa furay daaqadda ayuu si hoose u yidhi dhammaanteen waan aragnay daaqaddii yarayd ee sakaadka way furnayd baraf ayaa gudaha u soo galay waxaana ka muuqday raadad cagaha ah oo ka yimid daaqadda una sii jeeday gudaha sakaadka codkii aabbahay uu gariiray waxaan wacayaa booliska intii ay boolisku imaanayeen aabbahay wuxuu hoos sakaadka ku istaagay isagoo qori basebal ah sita wuxuuna ku qaylinayay qof kasta oo gudaha jooga markii boolisku yimaadeen waxay bilaabeen baadhitaan iyagoo marka hore u gudbay sakaadka wax yar kadib mid ka mid ah saraakiisha
ayaa ku qayliyey in qof qarinayo derbiga gadaashiisa sanduuqyo duug ah. Ma rabin inaan eego, balse indhahaygu way i diideen. Waxay soo dejiyeen nin deriskayaga. Mar Harlan wuxuu xiran yahay dharka Santa Claus, koofiyadiina weli madaxa ayuu ku hayay. Wejigiisu wuu cadcaday, indhihiisuna dhinac walba ayay u dhaqaaqayeen sidii uu meel uga baxsanayo. Aabbahay wuu aamusnaa, keliya wuu daawanayay. Mar Harlan had iyo jeer wuxuu u ekaan jiray nin deggan oo aan waxyeello lahayn. Mararka qaar wuxuuna weydiin jiray boostada, mararka qaarna buskud ayuu noo keeni jiray. Marnaba ma aanan malaynayn inuu sidaas yahay. Boolisku waxay fureen boorso u watay. Gudaha waxaa ku jiray dharkayaga hurdo, sharabaado, xataa dhar hoose. Waxay kaloo heleen kamarad Polaroid ah oo ay ku jireen sawirro qarsoon. Wuxuu naga qaadayay sawirro annagoo isbedelayna, wuxuuna iska qarinayay sakaadka si uu u dhiso kamarad qarsoon oo qolkayga ku wajahan. Markii la weydiiyey sababta uu u sameeyey, wuu qoslay. Santa had iyo jeer wuu daawadaa carruurta wanaagsan, ayuu yidhi. Qolka oo dhan aamusnaan ayaa qabsatay. Aabbahay gacantiisa ayuu garabkayga saaray, anigana wuu i soo jiiday. Weligay ma aanan arag isaga oo sidaas u gariiraya, cadho, cabsi iyo qoomamo isku jirta. Kadib markii Mar Harlan la kaxeeyey, boolisku way sii joogeen iyagoo ururinaya kamaradaha iyo caddaymaha kale. Habeenkaas midkeenna ma seexan. Aabbahay wuxuu nala fadhiyey ilaa waa bari, albaabadana mar walba wuu hubinayay. Raaligelinna marar badan ayuuna weydiiyey. Markii iftiinkii ugu horreeyey ee subaxda ciidda uu derbiyada ka dhex iftiimay, hooyooyinka Emily iyo Harber ayaa yimid si ay u qaataan. Aabbahay wuxuu sameeyey canjeelo, balse ma aanan awoodin inaan cuno. Waxaan weli ku fikirayay dharkii casaanka ahaa, raadadkii saqafka iyo dhoola caddayntii naxdinta lahayd ee Mar Harlan. Maalmo kadib baaraha booliska ayaa wacay. Wuxuu sheegay in ninkaas uu sannado badan sidaas samaynayay, gelidda guryo, daawashada qoysaska iyo ururinta sawirro qarsoon. Waxay heleen cajalado badan oo la xiriira carruur. Muddo bilo ah maan gelin sakaadka. Xitaa maanta, 2 sano kadib, weli ma seexan karo marka aan maqlo cod guriga dhexdiisa ah habeenkii. Ciid kasta marka nalalka saqafka ka dhalaalaan, laabtaydu way isku adkaataa.